بقبيل كدغا afar ogaadeen gabdhaha guursada talabaadna naakasto nin ogaadeen qaw waa kula leenahay hadda ku sheegaya naakasto nin ogaadeen ay guursatay deen kugu maqawa kaaga dib iimaanuna because qalanjooyinkan aan nool walaaga dib iimaana bismillah حياة عبد الحكيم عبد الله فارح وولدي وكاشي ومهد كيدو ياهي بقول جرام ذهب هي الكوكوري ما بكعسنا انت الوضع كان شكل ما كعسن كرو ابوغا غاشن متاهنجي ويلك حنينيسا ku dhigina idinka dhaay ogaadeen Soomaali ma xiniis maxaa uga dhigay ogaadeen ka badiyo no 9 milyan maxaa ku noqon saaxib xabashii guumaysa la dagaalona anaka waa isbadinayna waa isballaarinayna by nation wide ka daba har wiilka xiniisa ku dhigantiin talabaad nimanka waxaan kala hadlayaa lacag ku raacsanay xabiib waray dhigayso anima garanay sidii macsar gadaal in lagu marsan jiro ma fahanti in gadaal sidii macsar inta lagu marsan lagu toobin jiro ma garanay laakiin saan ku maqlay ragaan ka soo jeed especially daarood especially ogaadeen sidii macsar gadaal waxba uma marsadaan is very weird na laga ma helo sida daraaddeed waxaan ku dhilaa ka dhamaaw xabiib horoo soco raga kuumada hadee codkayga maqlaa cod dheer aan ugu soo gaarsiinaya guurka qabiil ka dhiga afar ogaadeen gabdhaha guursada talabaadna naakasto nin ogaadeen qaw waa kula leenahay hadda ku sheegaya naakasto nin ogaadeen ay guursatay deen kugu maqawa kaaga dib iimaanuna because qalanjooyinkan aan nool walaaga dib iimaana abay hal dhaaya nool walaaga dib iimaana lagu dhiga because idinka meesha qolxuma ka dhigay qabiil ahaan qof ugu dhigana waa arkay ما فهمتي حبيب ناسيس هكو دغينا حنيس لما قبسن كر عمامديسو توره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته hadalka laba waa kala qaadaya tohor waxa ugu hormaray hanbalyo qurux badan ina inta uga diro guurka guur qeyran la ilaahay awlaad xalaal ah oo saalixiin ah oo dalkooda iyo dadkooda wax taro oo diintooda anfaco oo wal ajkeera ilaahay ha ku sii ma fahanti awlaad iskaga ma duceeysta laakiin kuwa wax ku taro most likely markaan ilmaha la dhalo ama waxa loo korsaa loogu dadaalaa waayeel markaan noqotid finaashna wax kugu taraan ma aha xataa maskixiin markaan waayeel noqon ana kaalmo isku bedelno inay waxna taraan ama xaarka naga dhaqaan ama weysada noo soo shuwan qof kasto hamila ama ilaahay awlaad siiyay ilaahay awlaadaada saalixiin ha kaaga dhigo because wax la hantii waxa ugu qurux badan most likely waqtiga sadaam qash hebel waa qani waa awlaad saalixiin markuu ilaahay ku siiyo ku ilaahay awlaadooda durka galin ilaahay waxa uga barina in awlaadooda ilaahay u soo hanuuniyo ee awlaadaasna xaq ah ee arkaan waalidiinta ilmaha awlaad ku af adagna ilaahay waxaan ka baryayaa waalidiin caasi jiro waalidka bacaas uu noqon kara ina ilaahay xaq ku tusiyo oo awlaadaada u noqotid saalixiin ama hooyo ama aaba fiican u noqotid soo cunugaaga wax ku taro investing wax la galiyo waxa ugu qiimo badan human being bidaadan ayaa ugu qiimo badan dad baa lacag iyo u malayo waxa waqti la galiyo ama waqti lagu sibin garay waxa ugu qurux badan lagu daalo awlaada ma fahanteen ma ka hadlayo so anyway hambalyo abo macaano hore u soco guurkaaga guur qayl gurigaaga gurinayga guulo ka yeel ma fahanteen intii hamila ama guursanaysan guurkeena guur qayl qaba Allah ka dhigo inta familkooda ka burburin ilaahay wax qayl qaba ha idin siiyo because wax kasta waxa ka qurux badan ilaahay inuu ku siiyo awlaad qayl badan ma fahanteen cayayaanka baraha bulshada soo batay waa u jeedaa already caay bilaabay horta talabaad Soomaaliya anigu waxa isweydiiyay wiigan dhan busy aan ka ahaa waxaan busy in kaga ahaa qof waxaan ahay garabteed rarto oo awlaadeeda u shaqeysto talking to you right now dugsi quraan ku maqanyiin 2 days in dugsi bay aadaan 5 days school aadaan 4 nights a week swimming class iyo waxay aadaan sports so most likely waxaan waqti galiyaa oo waqtiga u badan galiyaa awlaadeeda waana wajib daruuri waajib ilaahayna isaaray anigana igu soo koriyo waa ma fahanti my kids come first alhamdulillah that's the reason why arintan baraha bulshada la isla dhaxwooda aan uga hadli waayo because waqti ayaan waayo okay aboowa hambaliyadiisa meesha soo uga dhacaya gabadhu hore u qabi jirin ilaahay risq qeyr qaba ha siiyo calaf ka qeyr badan ma fahantaa hadii isla joogaana detail ma ogi ilaahay iskaga dhigo labada xaas oo isku qanacsan oo raaliyo Allah ka dhigo because story-ga ma aragin labadooda murmayn ma arkin labadooda meel xumaato lagu wadana ma arkin laakiin dhibaatada jirto waxa weeyaan gorsoorayaasha baraha bulshada ama xawayaanada baraha bulshada ama dadkan u aqaan ignorance of baraha bulshada ama YouTube ha ku jiraan ama Facebook ha ku jiraan oo nin isku qaarad beeba joogino all the way Soomaali galbeed ku nool xiniyaha qabsanaya waxay ila noqotay talo waxaan ka badanay ma UPS inuu soo saaro alaabtooda ay rabeen alaabtiis intuu soo safriyo heblaayo adiga qeylanayo kaala isku qaraac inuu dhoomay rabeen macnaheedu waxaan ka wadaa
ninka rag marka xiniya qabsanaysa ama ku dhageys waa inuu walaasha ka tagay ama walaasha xumay ama gurigaaga dhibaato ka sameeyay laakiin wiil hore u socdo guursaday iyo gabar hadalkeeda la maqlino laga yaabaa inay naag sharaf leh ee tahay xataa meel baa uga dhicaysin sumcadeeda dadka raba inay u doodana malacag ka raadinayaan macnaheedu ma garanaysaa gabdhiina waa bateen allah noo daay ragiina waa yaraadeen waa dadka say dhahaan no ilaahay qofba waxaas been baan u arkaa qof kastoo qofka ugu talagal ilaahay calafkiisa ugu daraya ninkan waa u qornay gabadhaan inuu guursado gabadhaan inuu guursado xaq ilaahay bay ka qornay looxa ilaahay wuu ka qornaa anigana ma qorno firdowsa adigana ma qorno waxay ku qorxbanta either you say hambalyo or either you shut the fuck up otherwise haddaan Soomaaliku ugu sheego afkaaga xaaraanta inay haysatid because ina caatintid wax allaale wax faa'iido ay ku soo kordhinaysa iska yar macnaheedu waxaan ka wadaa wuu tashta nin rageed waa wuu guursaday waa go'aan isaga qaatay labadaas family ama gabadhu family ka qabi jira u dhax wax u yaal waa xeer ama gogolaha isku weeymaadaan haduu xumeeyeen gogolaha isku imaadaan haduu xarmarto suura jira haduu xumeeyeen gabadhii ma ba hadlina idinka maxaa la naq talabaad waxa ay ugu daran video oo soo hambaliyana ama sawirkiisa markaan baraha bulshada soo galiyay naagaha duqoshka igu jiro oo la dhaho lama ooyaan baa u aqaana sawirada u saarneen oo dhila ii soo qoray definition of dhila ama sharmuuta idin sheegay af Soomaali idin sheegay macnaha dhila ii sharmuuta idin sheegay dhila ii sharmuuta waxa noqoto naag damiir lahayn oo handicapada oo intelligent ahayn naag sidoo kale dhirno aqli badan dhila ii sharmuuta ma noqonaa bishinkaas ma lahaan karo because negotiation silkay kuma gali karo aga atima mi fatima la ka hadlayo naag dhiran oo aqli badan ninna ma rabo like me sharmuuto waxa noqotay naag shaqaysan karin sharmuuto waxa noqotay naag ala fahmaalo u bilaabneen sharmuuto waxa noqotay naag nin hoos fadhido dollarka weydiisanayso ma fahanteen naag saas andada TikTok I cannot stand TikTok manali kallu sharmuuto noqotay because andada ku suuq tagtay maxaan sharmuuto u noqonaa waxaan joogaa the greatest country in the United States of America money is everywhere if I work hard how should I be sharmuuto deelada ku dhasho wase marka dhilihiisa qoris adigoo xabiib iga urinaayo ama in adeerka iga urinayo one sentence isku ma xiriirin karaan that's the reason why they become sharmuuto yeah xaleedahay diinta qananina naag guursaday marka aan waa muxuu la guursaday idinka la dhaheysayna wacdi ku jirtay ilaahay wuxuu yiraahdo quraankiisa ninka afar loo bareey idinka teeni raaca this way or this way either me noqo ama banaanka istaagnin take care of your case and take care of yourself kii ugu talgal waa maana otherwise ka shangaray ana ahaan qaybaha masiirka uu aqaana ma fahanti nina naag gursa marka naag ka soo qarac me fardoos jim ama wax ka qaada isleeday I'm too intelligent ninkaaga inaan kula share garay girl hada ku sheegay I'm too intelligent to become sharmuuta either because sharmuuta waxa noqoto oo dollarka la siiya sharmuuta noqoto nacdiska ana woman look at me wallahi islaan iska xayisiineen كوسنا عندك بعد مركز اسكو دحداتين دح استغنانا يا موصل قبلها شرموطه بدل داي early 20s ام تيدي واي I'm a 40 and I look better than all so برا bulshada joogo شرموطه ما soo qori kartid because no qofku wala value guriya naagta maskaxdiisa maxamed cabdilla xasan iyo martin lun kina saaran ya marka x maskaxdiisa kala saaran محمد علي كلاي أبرو كلا واي how can she be sharmuuto no I'm too up level to be sharmuuto كا إذا sharmuuto سنة سلا وك sharmuuto سنة كي intelligent سنة ما بكع سنة أنت الوقت شو المركز لا شكل سما كعسن كرو أبوه جا sharmuuto عندي ويلك حنيني ساكو دقينا إذا كده أوجادين الصومالي ما يعني يسمح أوجا دقي أوجادين كابدي ينا سلام من معاكم نقاني صاحب حبشي يقول مثلا دجالونا أنك واسبدينه ناس واسبلارنا باي نيشن واي كذا بهاري ويلك حنيسة وكل جنتين طلباتنا ما كنت وحكلا الله يا العكو رحسنا يا حبيب وراي دجالسو أنا ما قلنا سيل معسر جدال اللجوم مرسنجر ما فهمت إن الجدال سيل معسر أنت اللجوم مرسل اللجوم توبنجر ما قرناي لكن سانكم مقلة رجع كسو جد سبيشل دارات سبيشل أوجادين سيل معسر جدال وحبوا ما مرسدان is very rare نلاقي ما هلو سيدا دراد وحكوا لي لا كذا ماو حبيب هروس صعب رجعكم ماذا دعوت كي مقلع عدنا نمسو جرسينا يا جورك بقبيل كريجا أفر أوجادين قبلها جورسد طلباتنا ناكستونين أوجادين قوة كل الله ينهي هذا كل شيء جاي ناكستونين أوجادين يو جورسد دين كوكو مقوا كهقدم إيمانونا كوس قلنا جوين كان النور ولا قدم إيمانا أباي حال دايا نور ولا قدم إيمانا لوجود دجا because إني كمان شفت الحما كدجا قبيل هان قفوا دجا نوارك ما فهمتي ابي الواقع سلام قبل حبيب ناسيس
هكون دهينا حنيس لما قبسن كر عمامتي ستورة إن هذا رجع عليه هروس جورسو إسبلاريان كله سيد محمد عبد الله حسن قبل بحكير روح عدي روح عداقي روح عدي من قودس وعلى سكوك هذا شيونا كادينه أفر كله أفر كله عندنا